عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha qaaliga waa idin salaamay isku soo noqosho wanaagsan maanta waxaan ka hadlaynaa casharadii taxanaa inoo ahaa ocular physiology and anatomy maanta waxaan ka hadlaynaa extraocular muscleska muscleska oo indhaha ay leeyihiin waa 6 muscle waxaan ka hadlaynaa extraocular muscle intraocular muscleska extraocular muscleska waa 6 muscle waxaa loo kala qaadaa 2 oblique iyo 4 rectus loo kala qaadaa 2 oblique rectuska afartan waa superior rectus inferior rectus, medial rectus, lateral rectus, superior oblique to inferior oblique. waa 4 rectus iyo 2 oblique. iyagoo kala faahfaahsan mid walbo inta wuxuu qabanayo meelo ka soo baxo meeshuu galo innervation ku helo waan ka hadlaynaa insha Allah. ugu horeyntii waxaa ka bilaabanaa superior rectus. superior rectus horta longi ahaan wuxuu gaaraa waa masalka ugu weyn dhirir ahaan wuxuuna gaaraa 7.7 millimeter ayuu gaaraa. originka meesha kasoo baxa waa meel la dhahay annulus of Zinke. so marka common extraocular muscleska rectuska common waxay leeyihiin oo origin ay leeyihiin annulus of Zinke kasoo wada baxaan waxayna galaan limbiska meel ah anterior surface of limbus ayay galaan. innervation waxaa quudiyo oculomotor nerve nervaha saddexaad ayaa quudiyo. shaqadu uu qabanayo maxaa waaye kuwa wuxuu sameeyaa elevation wuxuu sameeyaa encephalotorsion iyo wuxuu sameeyaa adduction oo isha inuu gudaha soo geliyo. shaqadiisa ugu horeeya waa superior rectuska. waxaa ku xijinaynaa medial rectus. medial rectus waa muscleska ugu yar medial rectuska wuxuu kasoo baxaa sida hadaan soo sheegnay annulus of Zinke wuxuuna galaa limbiska oo medial surfacekiisa oo limbiska ayuu galaa. innervation waxaa siiya oculomotor nerve nervaha saddexaad wuxuuna sameeyaa shaqo oo adduction oo isha inuu gudaha soo geliyo into the nose inuu soo geliyo. lateral rectus waa masalka ugu dheer waa asigana wuxuu gaaraa 6.9 millimeter ayuu gaaraa. originkiisa waa annulus of Zinke. insertionkiisana waa limbiska ayuu galaa. innervation ahaan wuu ka duwan yahay oo waxaa siiya innervation masalkani abducent nervaha lixaad ayaa siiya. so marka shaqadu noo qabanaya kan waxaa abduction keeda wuxuu adduction kana waa abduction oo isha ayuu banaanka u saaraa. inferior rectuska masalka ugu dambeeya waa masalka afraad dhirir ahaan wuxuu gaaraa 6.5 millimeter. origin ahaan waa annulus of Zinke wuxuuna galaa limbiska ayuu galaa. innervation ahaan waxaa kan siiyo oculomotor nerve wuxuuna sameeyaa depression isha ayuu hoos usoo geliyaa keeda waxaa elevation kor u qaada kan hoos usoo geliyaa isha isku laaba masalka qayb qaato isha in isku laabo encephalotorsion iyo abduction isha in baraanku bixiyo abduction. so marka oblique galayna marka superior oblique origin ahaan wuxuu galaa asiga sphenoid bone oo laftan sphenoid bone la dhahay ayuu galaa. ayuu kasoo baxaa wuxuuna galaa posterior surface oo lateral surface ayuu galaa. so marka innervation waxaa siiyo trochlear nerve nervaha afraad ayaa siiya. shaqadu noo qabanayo encephalotorsion depression iyo abduction ayuu sameeyaa. masalka noogu dambeeya waa inferior oblique maximumka origin ahaan wuxuu kasoo baxaa maxillary bone. insertion ahaan wuxuu galaa posterior surface ayuu galaa posterior lateral surface oo inferior ayuu galaa. waxaa siiyo oculomotor nerve oculomotor oo inferior ayaa siiya. shaqadu noo qabanayo encephalotorsion waa elevation waa iyo abduction waa. masalkan iyo masalka superior rectus isku shaqo ayay qabtaan oo waa same shaqo ayay qabaan. laba masal kale ayaa jiro oo iyagana laga helo eyelidka waan kusii daraynaa insha Allah. waxaa jira levator bulbar superiorus kan originkiisa waa sphenoid bone wuxuuna galaa tersal blade oo upper eyelidka. oculomotor innervation ahaan wuxuu ka helaa oculomotor nerve wuxuuna sameeyaa elevation ayuu isha ku sameeyaa isha ayuu elevation in hoos kor elevation in isha kor loo qaado ayuu sameeyaa kor inuu isha loo qaado. laba ayuu leeyahay wuxuu leeyahay deep surface iyo superficialka. deepka wuxuu galaa upper tersalka superficialkana waa triangular structure of aponeurosis waxaa loo yaqaan aponeurosis orbicularis masalkan hore ugu soo sheekeynay waa masalka ugu weyn oo eyelidka uu leeyahay origin ahaan wuxuu galaa sphenoid bone ayuu galaa upper eyelidka deepka qaybta dambe laga helaa wuxuuna galaa frontal and maxillary bone facial nerve nervaha toddobaad ayaa siiyo
wuxuuna sameeyaa depression in isha hoos loo soo dhigo. waxaa jiro interacular muscleska. Interacular muscleska iyagana waan ka hadlaynaa. Interacular muscleska sphincter saddex muscle waa sphincter pupillae, dilator pupillae iyo ciliary muscle. Sphincter pupillae wuxuu sameeyaa pupil contraction. Innervation waxaa sidoo kale motor nerve wuxuuna sameeyaa process la meiosis oo contraction inuu pupilka ku sameeyo. Dilationkana wuxuu sameeyaa pupil relaxation, pupilka inuu contraction uu sameeyo oo kala baxo. Innervation waxaa sidoo kale motor nerve oo madras ayuu sameeyaa. Ciliary muscle-ka asiga lensiska oo contraction relaxation ku sameeya. Innervation waxaa sidoo kale motor nerve. as waxaan ka hadalnay anatomical ahaan, physiology ahaan aan ka hadlaynaa insha Allah. Physiology ahaan waxaa jira agonist, synergent, antagonist jira. Agonist waxaa la extraocular muscleska shaqadeedu shaqo walba ay qabanayaan. Extraocular kuwa hanta kasoo hadlay shaqada ay qabanayaan. hadda lateral rectuska markuu isha left u riixayo waxaa loo yaqaanaa agonist. Synergent waa two muscle, waa laba muscle kuwaasoo same action sameynayaan oo hal shaqo isla qabanaya. waxaa waay superior rectus iyo inferior oblique, labadu waxay sameeyaan elevation. waxaa kaloo jiro antagonist, laba muscle waay laakiin waxay sameynayaan different opposite action. oo waxaa kamid ah lateral lateral rectus iyo medial rectus, labadooda shaqo kala duwan ayay qabanayaan. waxaa jiro muscles shaqooyin, waxaa jiro xeerar aad iyo aad u kala duwan jiro. waxaa jiro yoke muscle xeer la jiro contraction synergent, waa laba muscle each ay laba indheer ku kala jiraan, haddana waxay sameynayaan same action. jiro inta loo jiro version iyo waxay yihiin haddaan ka hadli doona insha Allah. Sharing law waa hal muscle in increase lagu sameeyo, halka muscle-ka kalena decrease innervation in lagu sameeyo. xeerkan waxaa loo yaqaanaa sharing law. Hearing law ayaa jiro, asigana waa muscle labada muscle in same innervation in la wada siiyo. Movement of the eye saddex loo kala qeybiyaa, duction, version iyo vergence loo kala qeybiyaa. Ductionka waa monocular movement, waa hal il in oo monocularka hal il ay shaqo qabanayso. Version waa laba il, waa same direction ayna sameynayaan. Vergence waa different waa movementiga waa hadan laba muscle oo different opposite direction sameynayaan. waxaa convergence, waxaa convergence iyo divergence la sameeyo. Convergence waa isha gudaha iskugu soo geliyo, divergence na banaanka loo bixiyo. Ductionka waa saddexda nooc waa hal ilaana inta badan la sameynaa. intaan nooc ayuu leeyahay adduction, in isha gudaha la soo geliyo hal il. isha markay gudaha soo galayso waxaa loo yaqaanaa adduction, banaanka markay baxayso waxaa loo yaqaanaa abduction. banaanka u baxayso lateral dhinacaas ay fiirinayso infraduction, subduction, cyclotorsion iyo cycloduction. intaan waxaa loo yaqaanaa duction movement. waxaa kaloo jira version movement. version waa binocular, laba il oo same direction sameynayaan. waa dextration oo dextroversion in la sameeyo oo right in labada indha ay fiiriyaan, left inay soo wada fiiriyaan, superversion korna fiiriyaan, infra hoos inay soo fiiriyaan. intaan waa oblique movementiga oo dextro elevation, right oo la fiirinayo elevation kor ah, haddana dextro depression, levo depression iyo levo version. intaan waa oblique movementiga waa. intaan waa physiological ahaan oo ocular anatomy physiology shaqooyinka noo qabto. idinkaga mahad celinaya, waa inoo qaybta xigta insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.